dawlad marka la mucaaradayo ama la taageerayo waa inaad liis dheer wadataa dhahdaa kanoo ku xumaa kanoo ku xun yahay kanoo ku fiican yahay kanoo ku fiican yahay kanoo ku xun yahay barnaamijkaygii marka waxaan u noqonayaa maxay u dhalatay towradu dhaararaan ayay u dhalatay towradu dhaaraan daryeelka dadkeena difaaca dalkeen ayay u dhalatay towradu muxuu qabtay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan kuu marsiinayay inuu sacuudiga aaday inuu wajeer yimid horta anoo dhammayn waxqabadkii waxaan kale maba ka hadli karo لأنه دتك وإنا political update وإنا دتك update قرينا وإنا دتك كده بجينا واحد دولته إتاي وإنا دتك حكسينا مركز كولرسك وأوجي ذا تلفون ذي أيضاً الله إله نكا وحشيجا يوقلدين ما واسحيه إلا موابر يسع وحنا شيجنا قياس معها وشير اللجوء عذابية هي وأكتر يسدي اللجوء هي أيا وحكله شيء دولة أن كاي أن وما هاد علينا إنه مدحوينا محمد عبد الله فرماجو وحير وشير وإن لفرا وإن بوركي وإن لفرا حدود دي باي ماشي اللي يرادو بلد حاو يو دوبلي يلي بوي وإن لفرا وأن لوفري كوبي لواتن مدفع بالوريدي وكسي الدولي وحو تجي أدي اللي كورو يا إيشك تركيا والأوجا وحي اللي سمي وحو تجي إثيوبيا وضد كفرت وير جرت هذا واحد وقتاي أنا أوجه التلفزيون كان عن كفير صدي رئيس الوزراء أوجيت أو إثيوبيا إنه يروان كاي لنا دب دمبنا أفرق جلين منه أرمها الصومالي وجمع مثلا أنا سببته تاي أنا وجب فدرال باناي ما على دين إلا إيرتو اللي بينا واحد وقف عن عدو جاو كوقره وروح عن كوش يجيا قفكي وناك ربا هرت وحوي الدولة ده هالكاسين بريسا شركة هديرو قدام بي انت الله لا waxa la yiri waxaanu u baahanahay anagu shirarka yarka la iska qaban jiray ma ahine waad ogeydeen sidii ay isku raaceen maamul goboleedadu waxaad hadalka ku furtoon aad ugu raaxaysanaya Cabduwali Gaas oo dhaliilay nimanka aan hadda aan ka wada hadli doono caawi waxaad u jeedaa in dadkii Soomaali ay midowday oo ay israacday oo ay wax weey anagu waxaan ka hadlaynaa oo lagu mashquulshay qurba joogta hadda dastuurkii waxa weey abti waxaan u sheegayaa dastuurkii waad u jeedaa waa tii loo maamul goboleedada dhan hadda laga soo qayb galinayo in la dhameystiro la rabaa saacadaha soo socda qabyada laga saaro la dhameystiro waxa la rabaa one man one vote in 2018 ka hor waa inay wax weeye xalimayare iyo la sii diyaar gareeyo ururkeedii waa la sameeyay waxa la leeyahay wixii dawladii hore dhacday ay ka gaabiso dhan hadda fara dastuurkana hadda lagu jiraa waa maamul goboleedada dhan waa ka soo qayb galeen culimo diinka iyo aqoonyahanka bulshada qaybaheeda dhan waa ka soo qayb galeen haddana waxa la sameeynaya xalimayare iyo qoladii one man qof iyo cod gaarsiin lahayna way socotaa waxaan horta rabaa shacabka Soomaaliyeed leeyahay hambalyo 8 bishii labaad 2017 waxay ahayd oo la dhihi karaa وبابريي بالعسن أروريسوبان مالين بغران waxay ahayd wax qof bini aadan uu isku wareerin hadaan kula soo socodsiyo way aan ugu riyaaqaynaa dawladan maxaan way aan ku raacnay maxaan naga maqnaa waxa naga maqnaa lahaanshii Soomaalida 1900 maalintii Caydiid uu 6 maalmood uu mootanaa Ethiopia waxay soo gashay meesha la yiraahdo Luuq ka bacdina isugan ku dhameeyay ka bacdina international community beesha caalamku waxay gacanta ku dhigtay lahaanshii Soomaalida waxay sameyn jireen kay rabaana waa irin jireen kay rabaana waa keen jireen waxay rabaana waa sameyn jireen waxa la socotaa hadda hawada duulimaadka oo ugu dambeeya hadda shalay iyo maanta telefishinkiina ba ka fiirsanay waa tii kumantigii la yiraahdo anaga naguma maamulaysin hawadeeda waa in Muqdisho waa in anagu maamulka eega la siiya qalabkiina asagoo sidiisa ku soo qaldama qaranka Soomaaliyeed qabsaday waxa la yiraahdo halkan inaga iskale hadaad hal shalay lacagta iyo ka qaadi jirteen inaga ka qaadan marka canshuurtii la soo celiyay marka sharaftii la soo celiyay marka karaamadii la soo celiyay xildhibaanada aanu imaan maanta wax laga oranay marka wax qabadkii in badan waad ka soo sheekaysay laakiin dadku waxay ka dhursugayaan awliyo iyo dadka la midka ah xildhibaanada Nairobi ku shiray waxay ka oranayaan waayahay waxaan rabaa dad horta waxa la rabaa Allahu akbar salaada markii la yiraahdo ama afar ragcaha ta ama laba ragcaha ta assalaamu alaykum kuma xigto Allahu akbar markii la yiraahdo faataha la akhriya marka salaada la xirto dawladan macnuhu waxa weeye dawladan laba bilood bay jirtaa 103 sano ma gaarin ninka is aruursaday waa is og yahay dadna waxa u xun waxa la yiri ninkii guri muraadada ku jiro waxa weeye dhagax tuur ha bilaabin axsaabta isku tagteena waa ognahay afka maanta kuma ballaarinayno
laakiin waxaan kuu sheegayaa waxa doqonnimo ah oo aad iyo aad iyo aad iyo aad u liidata nin xukun diidaya oo ninka xukunka helay asagoo oon waqti siin oo bilxikma ah ya xikmad ah hal sano xataa hal sano asagoon joogin ama 6 bilood joogay waa xun yahay ninkaas almarxuum qaldaan taas wax dhici kara ma aha waxaanu leenahay nimankaas waa qaldan yihiin iimaanka hays geliyeen waxa jira labada qolo isku beerto abti uu sheegayo waxa weeye waa nimankii Sheekh Shariif inta uu tagay yiri lacagta nasi oo yiri anu waxba ma dhiibayo oo ay markay ku hunguri daroobeen waxa weeye farmaajo caaradii ugu shubay farmaajona uu yiri anu koob shaadin ma haya dad qaranka dhisaysiina kaale hadii kale iska dhaafa oo shala wixii ay rabeen ku gorgortamayeen annaga ku sheegayna waxaan meesha ku shiraya waa nimankii aad ogeyd oo waxa weeye hameenkii maalinta doorashada ka horeysay hameenkeeda cashada lagu sameeyay meesha waxa hormuud waa xidig waxa shiraya oo la leeyahay dawladda ka soo horjeedana waa dam jadiid iyo daljir oo aan ugu aqaano daldumis dadkuna waxay leeyihiin dam jadiid iyo daldumis dam jadiid iyo daldumis dadkeenu warkood ma rabo waxay doonayaan midnimo la doonayaa nimankan waxa la leeyahay waxa weeye do the right thing to the right time wax sax samee waqtigay saciin ninka siyaasad raba waa inuu hal sano jooga hal sano iyo 4 bilood ayaan anigu Xasan Sheekh Maxamed markii la doortaan xamar ka bixin markii arkiifiyadayda aan inta buuxsaday aan ogaaday Soomaaliya inay socoto maalintaas aan inta dabada u soo baxoon u tagay waliba madaxweynaha oo aan 18 jeer la kulmo 2 jeer anigu aan u tagay 16 kara asagu ii yeeray maalintaas aan u sheegay oo waxaan ku yiri madaxweyne أنا وان بحيا وحان وذا الرواية اللي يرى أرقنا يا ماما غشين فقبوا أهانيكي مركان سميه رواية دا إحري أو نبي تسوق أها ما فهمت ودلك ده حسوا كل سميه أسوى هانيكي كتيني دي أسوى هانيكي إيه مدو إلى صاحبتي ماذا يسمعها عشان عندنا مركا إنه ما أنت أسوى لباب بلاد شوقة أسوى نبي تسوق صومري أو سفير صومري أو سياسات بدن كتير إنه تا حسن تركش كلا سكرنا هل كان وكلا حزب جديد يدم جديد وكبيره waxay noqonaysaa inuu sandan Soomaaliyeed wadine oo qadaddoon uu ahaa aad u liitay waliba